halkani waa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxa ay hore xarun ugu ahayd maamulkii Xibin iyo Xeeb haddana waxa ay xarun ku meel gaar ah u tahay maamulka Galmudug ee dhawaan laga dhisay gobolada dhexe ee Soomaaliya magaaladan waxa ay dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhinac walba leh dhammaan waxa u dhameystiran inta badan adeegga asaasiga ah ee bulshada sida waxbarashada caafimaadka isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga noocyadiisa kala duwan waa mid ka mid ah goobaha ugu ammaanka badan Soomaaliya waxa ayna bulshada u sahashay inay sameeyaan horumar ballaaran iyagoo aan ka baqaynin colaad sidoo kale ammaanku waxa uu sababay inay hagaagto bilicda deegaanka waxa uuna arinkaasi ahaa mid isi soo taraya marba marka ka dambaysa maalgashiga qurba joogta iyo ganacsatada u dhalatay deegaanka ayaa ka mid ah waxyaabaha soo celiyay bilicda deegaanka iyaga oo dhisay hoteelo waaweyn iyo rugo ganacsi oo aad u camiran geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha Soomaalidu dhaqato kuwooda loogu jecel yahay Soomaalida agteedana waxa uu ka joogaa darajo sare waayo sharci ahaan waa halbeega diyada halka ay u dheer tahay in deegaanada qaar ay dhaqan u tahay inay ku kala guursadaan gabdhaha xaradani waxa ay ku taallaa duleedka degmada Cadaado waxaa lagu xanaaneeyaa geel fara badan oo ay iska leeyihiin qurba joog iyo ganacsato u dhalatay deegaanka qaar ka mid ah milkiilayaasha geelaas ayaa ii sheegay mar aan ku booqday goobta ay ku xanaaneeyaan geelooda in ay caanihiisa u iibgeeyaan suuqyada ayna rajaynayaan dhawaan inay bilaabaan ka ganacsiga hilibkiisa waxbarashadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee laga aado magaaladan Cadaado iskuulada magaaladan ayaa ah kuwa ay buuxdhaafiyeen arday gabdho iyo wiilalba leh kuwaasoo heerarkooda waxbarasho kala duwan yihiin gargaarka Allah ka sokow dhammaan waxyaabahaasi waxaa saldhig u ahaa dadka deegaanka oo dhistay maamul ay ku mideysan yihiin kana shaqeeya nabadda iyo wada noolaanshaha 8 sano ee uu ka talinayay maamulkii Ximin iyo Xeeb waxa ay noqotay Cadaado magaalo horumar ka samaysa dhinaca siyaasadda ammaanka ganacsiga iyo waxbarashada Sheekh Xasan waa maamulaha iskuulka Imaam Maalik ee Cadaado waxa uu inoo sharaxayaa in horumarka ay ka gaareen dhinaca waxbarashada ay sabab u tahay amniga iyo xasilloonidii ka jiray deegaanka إن شاء الله تعالى هرمرك وحيالها إنسلانها رنتي هرمرك أي أساس بيهين وأنا نهاية النظام كان يهر كان سوق قارتين أما أرض وحكبرت تماشان وحسبب وإنسلانها هو نبض هدان لهلين وحكلوا ضمن لمهلي نبض أيها وجوه الريدة بناء كانوا لشيسة marka wixii ugu horeeyay oo helnay nabada ahaan runtii iskuulka markaan asaasnay intii aan wax yar joogin ba maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa la asaasay فلله الحمد مركي لا أساسين النبضان هلني إسكولات كيا صوبتي إسكولات بدنو كلا يمين نبض يا صوبت تدعى جناعتي دقاله مقالة إيه وحنا قلت مقالة وين أوف الضي وحسن وحصل الله إسلام هي بقول كيف سجاشني سجال نبض كترتي ماشى سقولتي مامل كحمل يحب يا وحها مامل آدي آد وخيم البدن ضد وكل السكينين مقالة وحي هاجرتي معنا هذا أي تهاي فلله الحمد ولي استيل أي تهاي in qofku uu yiraahdo cadaado meel ahayn ma seexanayn cadaadana geey markaas nabad noogu horeeyay oo cadaado inta la yimaado marka intii uu jiray maamulkii Ximin iyo Xeeb waxyaabaha uu ku guuleystay maamulkaasi waxa ka mid ah in uu iska ilaaliyay ka qayb qaadashada waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo ay reer galbeedku soo abaabulaan taasina waxa ay sababtay in dadka u dhashay deegaankan ay si siman ugu noolaadaan deegaanka ayadoo aan loo eegaynin xisbiga ay ka mid yihiin iyo waliba fakirka ay haystaan marka aan ka hadlayno wada noolaanshaha sida deegaankan loogu noolaan jiray runtii annaga uma fiiri jirin qofka
qabiilku ka soo jeedo, deegaanku ka soo jeedo, ururku ka soo jeedo, ma aanan u fiiri jirin. keliya halka pointi oo annaga aan fiiri jirna waxay ahayd qofkaani ammaanka khalqal miyuu gelinayaa mise waa qof u hoggaansan xukuumadda meesha ka jirta. taasna runtii wax badan aan ku gaarnay. waa real marka laga hadlo waxa weeyaan dowladda Soomaaliya saraakiisheeda u sarsaraysa hadday nabad sugid ahaan lahaayeen iyo hadday madax ahaan lahaayeen intuu way imaan jireen. waxayna mari jireen iyagoo istaaf la'aan ah ay dhulkaan mari jireen. ammaankuna ma ahan in qora lagula daba joogo. sidoo kale waxaa imaan jiray hogaamiyaal ahlusunno ka mid ah wayna joogi jireen. dad kaloo intaas la col ah ayaga naftirkooda waa laga yaabaa inay sometimes inay maxaa la yidhaahdaa indhaha isku dhuftaan. hase ahaatee dadka nooc kastoo yihiin sharcigay ku kala bixi jireen. cabdi xasan cali fooljaawe waa sargaal ka tirsan bahda caafimaadka waxa uuna ka howlgalaa isbitaalka weyn ee magaalada Cadaado. cabdi ayaan wax ka weydiiyey howlaha uu isbitaalku u qabto bulshada deegaanka xilligan. qayb bukaan socda intuu leeyahay, qayb bukaan jiif uu leeyahay, qayb dhalmo uu leeyahay, qayb bukaan jiif waxa uu sii kala baxaa ilaa 3 qaybood. qayb waxaa jiifta dumarka uurida iyo wixii la xiriira, wixii uur la xiriira dumarka uurida iyo wixii soo dhalay buka iyo wixii aan dhalin weli buka iyo wixii dhalay inta hal qayb isla seexda. ilmaha nafaqa darrida ah ama jiran ama nafaqa darro kaliya ah ama jiro iyo nafaqa darro isku haystaan meel bala seexshan. bukaanada kale caadiga ah guud bukaanada guud na qayb la seexshan. intaas waxaa dheer service aqoonina loo qabto dadka maskaxda ka xanuunsan mental signal ayagana waxaa marnay maadaama aan service-kooda dhammaystiran isbitaalka bixin ayagana wax yara lagu saacidaa jira oo si bukaan socota ahaan bukaan jiif maahan socota oo outpatient oo loo sameeya ayaa lagu fiiriyaa loo qabtaa. waxaa kaloo qabtaa isbitaalku wuxuu leeyahay qayb baaritaan uu leeyahay, shaybaar uu leeyahay, shaybaar fiican aad u fiican uu leeyahay. 75% wax looga baahan yahay shaybaar waa laga sameeyaa isbitaalka. isbitaalkan ayaa maamulkii ximin iyo xeeb ka hor waxaa hortaagnaa caqabado fara badan kuwaasoo meesha isaga baxay dhismihii maamulka kadib. burburkii dowladda hoose kadib soo maray inuu xaafadaha oo sidii guryo la degan yahay loo degan yahay dhasheen markaa kadibna la iska abaabulay dibadii gudaha haddii dadka u dhashay deegaanka sameeyeen abaabul ah in isbitaalka lagu soo cesho adeegiisii dadkana shaqadii loogu talagalay isbitaalka inuu qabto loogu qabto. 2002 ayay is abaabuleen dadku xamar iyo dibadda. waxaa lagu guulaystay dadka in laga saaro oo dadka laga bixiyo oo dib loo istaaro 2003 Juun dad ay ka mid yihiin Tiraan Tirguuleed iyo maxaa tira bulsho badan oo xamar ay ka mid yihiin ayaa arrintaas qabatay waa lagu guulaystay. waa tahay doctor su'aasha ugu weydiin lahaa tahay isbitaalka waxaan u sheegtay inuu shaqo aad badan qabto xilligii ugu dambeeyay inuu si fiican shaqadiisa u socotay. xilliyo horena ay caqabado badan soo wajaheen. maxaa sababay xilligan ugu dambeeya in isbitaalku si toos u shaqeeyo oo bulshada mid kaliya dad xaalad stable jiray deganaansho ay siin jireen waxba lama sameyn karo, waxba lama baran karo, waxba lama daaweyn karo, waxba la isma weydiin karo. qofku meeshuu jihadiis jirto u qaxa dabcan waxa hoos garay karaa waxtaa waa deganaansho in dhulku iyo deegaanka uu ahaa muddo stable ah. taas waa dadkii dibadda jiro diaspora ee deegaanka u dhashay iyo wixii gudaha joogo wadaniyiinta u fududeeyay inay wax ka qabtaan taasoo ah kaliya. dabcan waxaa sabab u nahay 2008 xilliyeedii dhexe maamulka madaxa beeraha oo meesha dabcan maamulku waxyaabihii uu qabtay looga faa'iideystay ayaa waxaa ka mid ahayd deganaanshahaas wuxuu noqday wax muhiim ah. inkastoo intaas wax ka badan ama adeeg intaas ka badan hawl intaas ka weyn laga filayo in la qabto dan haddana
meel cilaama noqon waxay noqotay qof kastoo intuu ka soo baxo meesha uu joogo oo wuxuu ugu talagalay deegaanka si toos ah u keeno. xilligan magaalada Cadaado iyo deegaanada hoostaga waxaa ka arrimiya maamulka Galmudug ee uu hogaamiyo Cabdikariin Xuseen Guuleyd. kadib dhismihii maamulkan ayaa walwal badan oo ku aadan ammaanka waxa uu soo wajahay bulshada rayidka ah ee ku dhaqan Cadaado. dadka intiisa badan waxa ay u arkaan inuu soo kordhiyay maamulkani xasilooni darro aan deegaanka horay uga jirin. qaar ka mid ah bulshada Cadaado oo ay warbaahinta dhaxdhaxaad makrofanka la dhex qaaday ayaa intooda badan soo dhaweeyay qaab maamulkii Ximan iyo Xeeb, iyadoo ay dhanka kale walaac ka muujiyeen habdhaqanka Galmudug ee ku aadan maamulka deegaanka iyo xasiloonidiisa. dad nabad ayaa ahayn haddana waxaan anaga barigi hore Ximan iyo Xeeb jirto waxaan dad degan oo jawi degan oo nabad ku nool oo meel kasta looga imaado. haddana waxaan nahay dad aan wax ku tirsanaan la arkin. Ximan iyo Xeeb markii aan ahayn oo ahayn nabadgelyo aan ku joognay dhibaatana naga soo wajahday magaca Galmudug naga soo wajahday dhibaatadaasuna ay tahay dagaal iyo dhib iyo islayn iyo isqabsi shida ay tahay. adduunka waxaan ka codsanaynaa dhibaatadaas meeshii ka soo wajahday in la joojiyo. maadaama aan ahay ka mid ahay ganacsatada degmada Cadaado ama maamulka Galmudug wallahi magaaladaas waxaan ka dareemaynaa change isbedel maadaama waagi hore oo Ximan iyo Xeeb ay maamul wanaagsan oo maaragtay amni istiqraar aan magaaladan aan ku noolayn. haddana hadda waxaan dareemaynaa foodo iyo waxyaabo isbedel ah oo loo baahnay qasab inuu ku yeelanayo foodo inay ku yeelanayso anaga ma naqaano amniyan ku noolayn maaragtay wax isbedel oo maaragtay oo toos ah imaaday dad oo maaragtay iska alla guduuda oo qoryasito magaalada soo galeen oo aan arki jirin laga baadi goob jiray xilligii hore deegaanka dhan laga baadi goob jiray loo galayn oo hadda ku soo kordhay iska imaadeen oo aan la maaragtay amnigii aan maaragtay inay qalqal galiyaan laga yaabo ayaa jira. marka waa qasab ganacsigii iyo horumarka deegaanka inay qalqal galiyaan wax qasab ah. Cabdifool Jaawe ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka walwalka ka qaba ammaanka sii xumaanaya ee magaalada Cadaado iyo deegaanada hoostaga. xabsida jirtaana waxay tahay ciidamo fara badan oo kala duwan ayaa magaalada ku sugan. dabcan ciidamadaas ku xaraysan oo rugo ku cayiman ku jira maaha. waxaad arkaysaa dad hubaysan oo la leeyahay waa ciidan oo haddana dharkii shilka sita oo magaalada dhex lugeynaya habeenkii duhurkii xilli walba socda. marmar xabado aan maqli jirin oo aan arki jirin dhulkan xabada kama dhici jirin. dadka miyiga xataa ay qawlooyinka ama jufooyinka ku diraan dhulka miyiga oo fog eerida fog baadiyaha hubkooda markay magaalada soo galayaan way soo qabsan jireen. hadda laakiin nin walba qorigiisa ayuu sitaa. dabcan haddaad aragto qori dad kala duwan qoryo ama hub dad kala duwan ay sitaan waxaad filan kartaa in wax dhici karaan. taas waa cabsi noocaas ah warma wax dhacaan wax dhici doonaan cabsi ah ayaa laakiin hadda ka hor ma dhicin wax dhibaataan. dhinaca kale Maxamed Xaaji Xuseen oo isagu qayb lixaad leh ka soo qaatay baraaraha iyo ammaanka ka jira deegaanadan Ximan iyo Xeeb ayaa cabasho ka muujiyay hadal uu yiri mid kamida mas'uuliyiinta ugu sareysa Galmudug sida uu sheegay. laftooda madaxweynaha xilliyo ka hadlay ammaankan adduunku ma rabo yiri ammaankii la rabay ma aha. ammaanka adduunku midka uu sugayo ammaan la yiraahdaa. waxyaabaha aan aad uga cabanayna weeyaan adeerada noocaas ah in ay nagu dhacaan ma aanan kasban. haddaan samaysanay annagu ma ahan ammaan. haddii saas dhashiika lagula daba taagan yahay iyo qorana oo amisom joogtana waa ammaan la yiraahdo. waxaan runtii ka xunnahay weeyaan Soomaalidana haddii ay noqoto in ayada la kala waardiyeeyo waa deheerna ma gaarayso meel lama tagayso.